السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabi kuna soo dhawaada kanaalkeena Daryeel Media. maanta waxaan muuqaalkan rabaa inaan kaga hadlo qiso la yaab leh oo adiga hadda i daawanaya aad in badan la yaabi doontid. fadlan waxaa ka codsanaa muuqaalkan bilow ilaa dhammaad inaad nala joogtid. lamaane dhalinyaro ah oo isguursaday ayaa degay guri cusub iyagoo ku camiray alaabo badan iyo hadiyado loo keenay. 2 isbuuc kadib ayay heleen casuumaad 2 tikid ah oo ah goob madadaalo ah oo aad qaali u ah. waxaa baqshada la socday warqad yar oo ay ku qoran tahay hal jumlad: bal garta qofkii idiin soo diray. lamaanihii ayay ku riday arrintan xiise gaar ah iyagoo ka helay goobta lagu casuumay iyo inay ogaadaan cidda soo dirtay casuumaadda. waxay aamineen cidda soo dirtay inuu yahay qof ku weyn balse raba inay ka yaabiso. waxay ahaayeen dadka aaminsan waxa la yiraahdo surprise, ama qof looga dhigo si lama filaan ah ama hadiyad lama filaan ah la siiyo. waxa ay aadeen goobtii lagu casuumay, waqti fiicanna ay ku soo qaateen. markii ay guriga ku soo noqdeen habeennimadii ayay ugu yimaadeen gurigii oo la jabsaday, lagana qaatay wax kasta oo qiimo lahaa iyo warqad dhex taalla oo ku qoran far la mid ah tii tigidhka ku qornayd. haddaa garateen cidda tigidhka idiin soo diray. wuxuu ahaa tuug casri ah oo farsamo sare adeegsaday si uu guriga ugu saaro kadibna uu u daba maro. ha u qaadan wax kasta oo deeq ah, wax bilaash ah ma jiraan nolosha. haddaad u haysato in dadka qaarkii hadiyado qaali ah u bixiyaan si bilaash ah, mar labaad ka fikir kana taxadar kuwa aadan garanaynin ee kuugu yeera inay ku madadaaliyaan. qaar baa farxad gaaban iyo qosol ay ku siiyaan kugu noqon kara fashil iyo qoomamo dheer. ugu waxa kuu riyo ah oo macaan ayaa kugu noqon karo qarow qaraar. halkaasi ayuunu ku ogyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii aad ka heshay subscribe inoo saar, sidoo kalena muuqaalkan like saar. aad baad u mahadsan tahay.